السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سوري وهذا خيارتك وحنا نشارك الصومالي نتوي كلاسرو waxaan la socday course kala magac baan siisanay chapter kiisteed baan ku jirnay waxaan kaga waranay sida filan waxa loo aburo markaan ka imanay ayaa waxaan sheegnay sida filan uu kala duwanaa wada xiriiraan in loo baahnaanayo layer 3D face oo router ku madax yahay ama router ku kamid yahay sidoo kale waxaan dhahanay godka taranki boort baa laga dhigaya laba afarta godna export baa laga dhigaya haddaba maanta aan qabanna maxay wixii loo yaqaanay practical kan qaadan laakiin waxaan mari doonaa ilaa 3 step baan mari doonaa waxaan mari doonaa 3 step stepka koowaad intaynaan gaarin sheekadan loo yaqaano isku wada hadalkooda horta markoodka filanadaan abuuran doonaa isla topological oo dhisantaan abuuran doonaa markaan aan dhisno oo aan routerka waxa saynoo dambeeyay oo aan seen sheekadeena hore filanadeena switch ku abuurno talaabada labaad waxaan keeni doonaa inaan routerka adeegsano mala socotaa talaabada labaad aan ku noqon talaabada labaad godkaasaan ka dhigi doonaa maxay taranki board salooga dhigaan arki doono talaabada saddexaadna waxa weeyaan oo inaan routerka adeegsano oo adeegsano waxa loo yaqaan sub interface bay nagu soo biiri doona erebixin loo yaqaan sub interface oo waxa weeyaan waan arki doonaa sub interface hortaan qabana practicalkeed waan qabana bal erebixinada maanta nagu soo kordhi doona balaan fiirsano horta markoobaadkeeni aan switchka soo qaadan horta waxaan ka duuleynaa waa maxay sida laba filan iyo wixii ka badan oo kala duwan sida loo wada xiriirsiyo ayaan ka duuli doonaa oo ma sheekadeen sida filan loo abaro horaan soo baran okay switch baa ka inoo yaala isla topology aan ku dhisi doona topology halka inaga muuqda ayaan ku dhisi doona okay waxaan soo qaadan doonaa laba computer labada computer inoo soo qaad halka inoo dhig okay labada computer iyaguna halka inoo dhig okay inuu dheeraado 10 kana waa suurtagal laakiin insha Allah waan u sabri doonaa marka waxaan sameyn doonaa labadan computer godadka inoo xifdiya godka switchkan wuxuu kaga xilmay fast ethernet 0/1 ayuu kaga xilmay okay godkan wuxuu kaga xilmay fast ethernet 0/2 ka siinayna computerkan waxaan ka siin doonaa fast ethernet 0/3 baan ka siin doonaa switchka uu kaga haysan doono waayo ma dhamanka filanada abuurayna inoo haya saameyn bay nagu yeelanayaan godadkaas oo waxaan leenahay labada god ee fast ethernet 0/1 labada hore fast ethernet 0/1 iyo fast ethernet 0/2 waxay ka tirsanaan doonaan filantan fast ethernet 0/3 iyo fast ethernet 0/4 filan waxay ka tirsanaan doonaan filan 20 taas waa taa aynu qurxisan hadoo meesha waxaan qurxisan file interface aan dhahno balana okay aan qurxisano midabkaan marsan doona si wixii isku la faano midabka waxaan adeegsanaa midabka haya waayo waxa qurxiska insha Allah ardayga ayuu baa kolba labadii midabkii uu qurux badnaado musuq adeegsan doona midabada waxa lagu kala duwan laakiin saameyn kuma yeelanayso okay kaas oo ka soo isla garanayma marka inta ka imanno ayaa waxaan sameyn doonaa inaan tan dhahno waa filantan tan waa filan 20 okay marka magacayaan iskala bixi doona waxaan leenahay tan waxa la ka dhigi doonaa filantan magaca inoogu bixiya madama kan filanada abara magac baa loo baahay business baan bixinaynaa IP address ka yeelanayso ama shabakada network ID-geedu wuxuu noqon doonaa 192.168.1.1.0/24 waa shabakada waxaan sheegnay filanka magaceedii aan computerkan soo dirkisano waxaan sheegnay maxay filanka magaceedii filanka numberkeedii iyo magaceedii iyo network ID-geeda haysansi aan abuurano filanka kale waxaan bixin doonaa filan 20 magacaan bixin doonana waxa weeyaan financial waa nolosha caadiga ah aysan loo yiraahdo okay network aan siin doono waxa 192.168.2.0/24 waa laba network oo kala duwan simaartid okay maxay noo dhiman computerka IP address kan siin doono computerka IP address kan siin doono waxa weeyaan saddex number hore shabakadu kala noqon doona 192.168.1.0 sagasma .1 noqon doona godka ugu dambeeya computerkan wuxuu qaadan doonaa .2 soo shabakada ku abtirsanaya computerkan wuxuu haysan doonaa IP address ka 192.168.2.1 meel soctaan computerkan wuxuu haysan doonaa 192.168.2.2 meel soctaan oo saddexda number hore maadaama shabakada kala mid yahay waan iska dhaafno ama hoos dhigana saasay qurux badnaan soo dhigana inoo hoos dhigno okay
okay kana computer misalkaasaan ka saaran halkaasaan inoo dhaa may halka hoose yarka qofa dhiman computerka koraan iska qaado IP addressyadiina waan ku note garaysanay soma okay maxaa kale note inoo dhiman note waxay inoo dhiman bas intaas note inoogu filan imika switchkan iman doonaa labada filan baan ka abuuri doonaa bal u fiirsano switchkeena baan imanay switchkeena markaan imano ayaan waxaan iman doonaa command line interface ka iman doonaa okay halkan waxaan ku dhaafi doonaa enable baan ku dhaafi doonaa config baan ku dhaafi doonaa okay waxaan abuuri doonaa filantan ugu horeyn waxaan abuuri doonaa filantan magaca inoo siiya saaxib name-ka magacaan sino xuwa business buha soma waan iska soo bixi doonaa waxaan abuuri doonaa filankii kale oo mar baan godadkana wasin doonaa laakiin filan kala abuurna filan 20 na name-kan siinaya xasuusta filan 20 na waxaan siinay magaciisa financial ayaan siinay soma labadii filan ka waan abuurnay marka hadana exit ka soo baxano oo markaan briefly-keena marayno aan eegno wixii amarkii filanada lagu eegi jiray oo show filan br oo brief loo soo gaabiyay hadda doona waad iska dhameystiran doontaa aan eegno waxaan eegnay laba filan baan abuurnay filan 10 iyo filan 20 filan 10 waa business laakiin halka waxaad aragtay inay wax godad aan inoo oolin oo imaka 24 ka godad switchkeenu leeyahay dhammaan filan webi ka tirsan sida darteed waxaan sameyn doonaa hadan anatorkeena soo qaadano anatorkeena hadda waxaan sameyn doonaa qodobka u fiirso calaamadiyeena inoo soo baxo waxaan sameyn doonaa dadka loo yaqaan facility net 0/1 iyo facility net 0/2 waxaan soo raacin doonaa filan taman soo raacin doonaa maadaama in la erkeeno malaynaya maadaama maybe updates no u fiirsa saaxiibkayo waxaan sameyn doonaa filan godka loo yaqaan facility net 0/1 labada god waxaan insha Allah ka tirsin doonaa filantan ayaan ka tirsin doonaa imika wada arka filantan waa bila god oo afritinka godba filan weyn bay ka tirsan labada god ee facility net 3 iyo facility net 4 iyagana waxaan ku dar ka tirsin doonaa filan 20 financial inta maleelfa sababtan saa u leeyahay waxa weeyaan hadan marka iska soo koobno bal u fiirso waxaad arkaysaa labada god ee facility net 0/1 labada god ay naga masax bal u fiirso godka waxa loo yaqaan facility net 0/1 godka kalena facility net labada god ee facility net 0/1 iyo facility net 0/2 waxay ka tirsan filantan labadan god loo yaqaan facility net 0/3 iyo facility net 0/4 waxay ka tirsan filan 20 marka shaqaynaa waxa weeyaan inaan labada god soo qaadno oo aan ka tirsiino filantan labada godna soo qaadno filan 20 aynu xubin kaga dhigno okay intaanu qaban aynu qabano okay aan iska soo xidhno intaanu qaban okay switchkeena iman doona markaan switchkeena imano ayaan waxaan iman doonaa imka waxaan joognaa ka briefly halka filan ya laga abuuray miya ka waa ka show lagu qoron marka configuration keena iman doona kor baan soo bixi doona waxaan iman doonaa godka loo xaleen interface sababta range uu adeegsanayay sheegay waayo waa laba god wani kulli laba god iyo wixii ka bad range baa la adeegsan waxaan leenahay interface range fast ethernet aan balaarsano interface fast ethernet 0 fast ethernet ilaa laga gaarayo 2 waxay ka tiri horta xaaladooda waa maxay switch board xaaladooda ay sheegaya waa axis waayo madhow waxa mari doonto frame ka imanaya hal filan oo filan 20 iyo filan 10 oo kaliya ka imanaya de okay switch board han qoray waa maxay haleenahay switch board iyo access gareyn waxa access gareyn ama leeni filan 10 markaan soo abuurnay oo ha businesska exit intaas ka soo bax isla intaas ma soo qori doona mar labaad aan leenahay interface range godka loo yaqaan facility net 0/1 bas 3 dhade ilaa iyo 4 labada godna iyaguna xaaladoodu waa maxay xaaladoodu waxa weeyaan switch board mode code uu yahay maxay yahay access waxaana access garan doona madhow insha Allah switch board waxaana access garan doona madhow haduu Allah idmo filanka loo yaqaan filan 20 oo ha financial imika hadaan iska soo baxano oo anaka configuration kiban joogna configuration kan iska soo baxano oo ana markaan joogna briefly-keeni aan qorno show filan brief oo br aan soo qaabane bal aan u fiirsanay makana qaninkeenii noo soo waxaan arkay doonaa in filantan aan abuurnay filantan oo loo yaqaan business filankaas uu shaqeynaya waxaana ka tirsan facility net 0/1 facility net 0/2 sidoo kale waxaan abuurnay filan 20 oo financial kiya
oo xaaladiisu ay shaqaynayso kana tirsan fastnet 0/3 iyo fastnet 0/3 inta goday kale ka tirsan oo dhan dhammaantood maadaama imka sida defaultiga filaweyn ka tirsan maadaama afar computer kaliya adeegsanay labana waxa loo ka tirsan yihiin businesska labana financial inta markaan ka imano ayaan ku waxay noo dhiman oo kaliya markaanu inteen hore hadan ku noqono inaan computerada aan siino maxay IP addressadeen aan siino computerkaas aan iman doonaa wili meynaan gaarnay sida filaanadu wada hadleen inta waa inta 10 hore baan u dul marayna computerka waxaan siin doonaa IP addresska 192.168.1 ayaan siin doonaa 192.168.1.1 baan siin doonaa okay samene maskiis ka default ticket weega ma dhawaan soo noqon doonaa iska dhaaf okay computerka labaad waxaan siin doonaa 192.168.1 oo shabakada ah isagoo .2 ku xigsiin ay u qaadan doonaa oo 192.168.1.2 buu qaadan doonaa samene maskiis default ticket weega isagoo soo noqon doonaa oo maanta video wax badan baan ku arki doonaa computerka waxaan siin doonaa network ID-giisa wuxuu ahaa oo ka 192.168.2 samaartid .1 buu markaa ku xigsiisan doonaa aan desktopka imano desktopka aynu imano IP configuration saan uga soo diro waxaan siin doonaa IP addresska ah 192.168.2.1 baan siin doonaa ka loo yaqaan default ticket weygana waan soo noqon doonaa in dhaafi waxaan iman doonaa computerkeenan afraad waxaan iman doonaa desktopka waxaan ka siin doonaa IP addresska ah network ID-giisa waa halka ku qoran 192.168.2 sooma marka .2 si ku xigsiisan doona oo ah 192.168.1. ma xajida 192.2.2 ayuu qaan doona default ticket weega waxaan soo noqon doonaa haddana marka ay araan ku tusay IP addressadaan siinay kan waxaan siinay saddexda god hore IP addressku ka wata oo 192.168.1 weeya 192.168.1 inta network ID-giisa weey laakiin isagu wuxuu computerkan kaga duwanaaday waa .1 computerkan kale saddexda god hore waa ka same oo network ID-gooda waa 192.168.1 inta waxay ka sameeyeen maxay ka midaysan yihiin network ID-gooda laakiin kaliya waxay ku kala duwan yihiin godka ugu dambeeya loo yaqaan host ID-ga marka qodobka meel ku qoran maadaama saddexda god hore ka midaysan yihiin waxa leenahay waa network ID-ga maadaama godka dambe ku kala duwan yihiin kaana waxa loo yaqaan host ID qodobka meel ku qoran waxa leenahay computerka waxaan siinay 192.168 marka laga yana insha Allah codkayga ma ka fahmi doonta 2.1 kan kale waxaan siinay 192.168.2.2 marka maadaama saddexda god hore ka midaysan labadan computer waxa leenahay saddexda god hore waa network ID godka dambe ku kala duwan waa maxay host ID marka qaacdo meel ku qoro hadii gurigiina routerki adamka computerka aga adeegtid IP addresska adeegtid qof kale guriga kula joogan IP addresskiisa hadaad aragtay saddexda god hore ama labada god hore inay ka midaysan ama halka god hore inay ka midaysantii ka midaysantihiin wax loo yaqaan network ID kaad ku kala duwantiina host ID baa loo yaqaan tusaale kale shirkadeena Telesom numberanteedu maxaa ugu wada horeeya 25263 soo ma hadde wixii dambe ama 7 ha ka bilowmaan ama 4 ha ka bilowmaan ama ha ka bilowmaan haduu alla imo 3 so kuma midaysan inagu dhamaantiinta Telesom adeegsato 25263 25263 waa network ID inta dambe ku kala duwan inuu host ID qodobka meel ku qoran sida fikrad la mid ah marka network la joogana la adeegsada taas waa taa imaka dawa plan eegnon ablan tijaabino in computerka la hadlayo sidoo kale waxaan ogsanay computerka marna computerka ka la hadlayndi oo wixii isku filaan baa wada hadlay bal ma eegnay marka computerka hadaan imano oo aan imano command promptigiisa aan dhahno bal waxa la hadasha adigoo kana adigoo adigoo computerkan waxa la hadasha computerkan oo la hadlaya sababtuna waxa isku filaan baa leen jawaabta weliga waxa la yiri dameerku waa wixii noqon la caalim hadaan jirin limaada marka qof kale uu ku raado waa wada hadlayana sababta sheego inaad sheegto sababta marka daan dhahno bingi waxaad bingaraysaa maxay oo tijaabsay inaad gaari karaysa computerka isku filaanka tiin 192.168.1.2 ah u gaari karaya hatta saddexdii message bay inoo soo baxeen aan yarsi balaadna hadan doon saddexdii message bay inoo soo baxeen sida darteed afartii message baan dhahnay afartii message ba wadiga waxa ka dhigantay computer 1 ayaa afar baakad soo diray isla afartii baakad ayuu wuxuu ka helaa computer 2 wax lumayba ma jiro isla socna computerkan kala hadaan marka imano kan on dhahna kan la hadal uu la hadli karaya aan eegno command promptiga hadaan imano computer 4 baan ku jirnaa ka
waxa rabaa inuu kan la hadlo kan IP addresskiisu muxuu ahaa 192.168.2.1 oo anaga hoostiis ku calaamadsanay oo haddaan dhahno bingi 192.168.2.1 wala hadli karaya sababtuna waa maxay xaleena waa isku Finland adiga arka afartii message boo soo baxeen laakiin waxa su'aala laba computer kala Finland ma wada xiriir karayaan oo may mid shaabina bal computer ka intaan imanno bal ka la hadlo u fiirso waxaan imanaynaa computer kaas aan iman doono waxaan eeg doono computer ka dambe la hadlo bal aan eegno lama hadli karayo sababtuna waxa leeyahay waana kala Finland soo xiriirana waxaan iman doonaa xaleena waana kala Finland wixii Finland ma wada xiriiraan soo wada xiriiraan isla fidiga ma ka arki doono marka computer ma ku jirna computer ka afraad IP addresskiisa xasuusta 192.168.2.2 192.168.2.2 ma xiriir karay sababtoo waxa leeyahay waana kala Finland meeshina lama keeni layer 3 device oo routerkiya adiga request time out request time afartii message oo computer 1 soo diray computer 4 wuxuu ka helayo receiver ma jiraan waa request time out request time saddex afartii message ka yimaado waxa weeyaan aan sila faano ping waxaan loo yaqaanaa waxa ka dhigantay computer 1 ayaa ping wuxuu soo diray suma computer 4 aan macna waxa tahay afar baakad buu soo diraya afar baakad oo ku hubinayo in computer 2 gaari karayo hadduu gaaro afartii message ba si positive loogu soo jawaabayo oo aragnay waa gaari karays laakiin hadaan gaari karin waxa loo soo qori doonaa request time aad afar channel macna afartii baakad soo dirtay afartiiba ma gaari karay macnaheedu taas waa taa inta hore videogeena hore iyo filaanay ayaan kaga waray maanta hadoo balan videogan ka eegno sidee ayaa labada filaan ee kala duwan loo xidhiidhsinay ugu horeyn marxaladeena ko notebook aan la imano notebook aan la soo waa dhowr marxalad baa mari doona marxalada koobaad notebook aan la imano marxalada koobaad waxay dhahaysaa step 1 marxalada koobaad waxa weeyaan in router meesha aan keeno waxaan keeni doonaa router device kana muxuu noqon doonaa router device waxa weeyaan waa qalabka inoo saamaxaya laba network oo kala duwan ina wada xiriiraan waxa leenahay router device is waxa weeyaan waa device waa qalab dadkaaso allow us inoo ogolaanay ama allow ogolaanaya two or more networks laba iyo wixii ka badan oo networki ah to communicate ina wada xiriiraan inta balaarsano to communicate ina wada xiriiraan to communicating ina wada xiriiraan and transmission isdhaafsadaan intaan hoos soo dhigo and transmission isdhaafsadaan different baakadyo kala duwan sababtaan baakad u adeegsanayay sheegaya waanaga dhahnay maadaama routerku uu yahay layer 3 device xogta marka dhaxdiisa dhaxmaraysa baakad baa loo yaqaan maadaama switchku yahay layer 2 device xogta marka dhaxmaraysa frame baa loo yaqaan oo mar walba markaan switchka dul joogno data oramayna waxaan dhahaynaa maxay frame baan dhahaynaa markaan routerka dul joogno baakad baan dhahaynaa haddaba aan hoos soo dhigay marxaladeena kood waa taa oo waxa kana waa network gooniya haddaan routerka aan imano routerka aan yeedno routerka marka halka ku dhifatid halka routeris baa kaaga muuqda routerka waxaan soo qaadan doonaa version ka loo yaqaan 200 ayaan soo qaadan doonaa saad garatama waxaan soo qaadan madalada switchka routerka kala duwan yihiin waxaan soo qaadan doonaa saaxiibka xarigi loo yaqaan straight waa labada qalab way kala duwan yihiin godkan kaga xiri doonaa noo haya godka loo yaqaan fast ethernet 0/10 ayaa switchka ka yimaaday routerka waxaan kaga xiri doonaa fast ethernet 0/0 labada god magacooda ma loo kala hayaa sax hal xifdiyo waa laas godka switchkeena maxaa loo yaqaan fast ethernet 0/ aan yar dubi darkiyo godka switchkeena ka imanaya routerka waxa fast ethernet 0/10 waa godkan ka dhigi doono midhow taraanki godka loo yaqaan fast ethernet 0/0 waxaan ka dhigi doonaa waxa loo yaqaan sub interface laba erey bixin ba meesha nooga imanay godka waxaan ka dhigi doonaa xaaladiisa taraanki waan ka dhigi doonaa sax sababtan taraanka uu ka dhigi doonaa waxa weeyaan sidoo awood ugu yeesho godkaasi in fiilantan xogtii ka imanisay iyo fiilantan xogtii ka imanisay sida ay u dhaxmarto elefanti stawan silifan router keenana godka u fiirso godkaana fast ethernet 0/0 waxaan ku sameeynaa waxa loo yaqaan erey bixin loo yaqaan sub interface
sub interface maxaa sub interface waxa weeyaan godka aad adiga logical physical kugu muuqato inuu hal god yahay ayaanu kala jibin doonaa maxay godadu kala jibin doonaa oo waxaanu kala jibin doonaa sayimka ma fast ethernet 0/0 soo ma waxa ka dhigi doonaa fast ethernet 0/1 iyo haddana fast ethernet 0/1 iyo fast ethernet 0/2 waan ka dhigi doonaa oo sababtan u kala qaybina waxa weeyaan waxaan ka dhigi doonaa godkaasi maadaama dhahno router ku xumata waxa loo yaqaan default bu matala ay waxa rabnaa godka loo yaqaan fast ethernet 0/1.1 inuu default gateway noqdo fiilantan godka kale loo yaqaan fast ethernet 0/2.2 inuu default gateway noqdo kuwan macnaheedu maxaan ka wadaa saa waxaan ka wadaa godka loo yaqaan fast ethernet 0/1.1 inuu godka u noqdo fiilanka u noqdo fiilantan almacna inuu fiilantan u noqdo godkii awood ugu yeelan lahaayeen inay dibadda u baxaan oo network kale kala xiriiraan sidoo kale fast ethernet 0/2.2 fast ethernet 0/2.2 waxaan default gateway uga dhigi doonaa fiilan 20 oo awood ugu yeelanaysa fiilan 20 inay fiilana kala la xiriiro silfan sub interface waa xanaani noo saamaxaya inaanu godkeena aanu kala jibino fast ethernet 0/2.2 silfan marka waxaan sameyn doonaa godka inaanu kala jibino marka waxaanu kala jibin doonaa hadda notekeena soo qaadano fast ethernet 0/1.1 maybe aan ka dhayn marka hore wuxuu fast ethernet 0/ soo hayna saasanu kala jibin doonaa fast ethernet 0/1 iyo fast ethernet 0/1 yani jida saas waa marka labadaasanu kala jibin doonaa godka inoo muuqda dusha inoo yaalay sida physicalka ah ayaynu kala si switchka soo maanu kala jibin switchka bay laba switch kama kala dhigano midna fiilante ku xilsay midna fiilante godkaana saasaynu kala jibin doonaa marka godka loo yaqaan fast ethernet 0/1 fast ethernet 0/0/1 wuxuu default gateway noqon doonaa ayo ambabiyo wuxuu noqon doonaa default gateway wuxuu noqon doonaa oo macna tahay default gateway uu noqon doonaa fiilanka loo yaqaan fiilantan oo awood ugu yeelanaya inay fiilanka kala la xiriiraan oo IP address-kan godkaas in doona logicalka ana godkaas waa logic wax la arki karaya ma oo waxaan godkaana IP address-kan si doona waxa weeyaan IP address network-kan haysta network-kan muxuu 192.168.1.0 Soomaali marka asagu wuxuu qaadan doonaa 192.168.1.100 buu qaadan doonaa qodobka meel masala dhignay hay godkan kale isagana aanu kala jibinay fast ethernet 0/0 aanu ka dhignay fast ethernet 0/0/2 isaguna default gateway wuxuu noqon doonaa maxay wuxuu noqon doonaa fiilan 20 oo IP address-kan si doona wuxuu noqon doonaa network-kan haysto 192.168.0 network ma waxaan siin doonaa isaga 192.168.2. ayaan siin doonaa in la fahmay baan tarjeynaya sababtan default gateway ugu baahnaanayaan ku sheego waxa weeyaan qaacido meel ku qoro network sidoo network kale ula xiriiro waa inuu u baahnaado default gateway waa inuu u baahnaado sidoo kale network ma dhisnaha saakana network ma dhisnaha network-kan soo la xiriiro network-ka waa inuu default gateway-ga u simara oo wuxuu imika aduu rabo inuu network-ka la xiriiro IP address-ka soo dir doona IP address-kan ba ku soo leexin doona network-kan loo yaqaano fiilan 20 ahna haduu rabo inuu network-kan kala la xiriiro isaguna default gateway-ga soo mari doona silfan inta dhowr ka maxad marada hadaba marxaladda koobaad waxa weeyaan in switch-keena iman doona switch-keena markaan imano ayaan godka waxaan ka dhigi doonaa taranki markaan ka dhignana awood ugu yeelansiinay inay maraan hadduu alla idmo labada network labada fiilan xogtooda inay marto marka intaan godkeena imano marka balaan imano maxay switch-keena imano godkaasaan waxaan ka dhigi doonaa godka loo yaqaan fast ethernet 0/10 inuu taranki noqdo balaanu fiirsano waxaan iman doonaa horta switch-keena waan ku jirnaa enable baan dhahnay okay configuration waxaan godkaasan gali doonaa loo yaqaan interface fast ethernet 0/10
aan yar ka soo dorkiyo ethernet fast ethernet 0/10 ayaan ma doono waxaan iska qaado waxaan ka dhigdana fast ethernet 0/10 godkaas aan iman interface aan khaldasa loo qalamiya interface fast ethernet 0/10 oo godka switchkeenu leeyahay oo kala xidhiidha router ayaan iman godka waxaan ka yeeli doonaa xaaladiisa ay sheegaya moodkiisa waxaan ka dhigi doonaa taraanki waan ka dhigi doonaa maadaama sababtu taraanku noqdayna qodobka kama ku sheegi doonaa soo taraanki ma ha waxaan leenahay switchboard godkan xaaladiisa waa maxay waa taraank switchboard mood taraank soo xalay switchboard taraanki godkan awood wuxuu yeelanayaa inay maraan frameska ka imanaya fiilantan iyo fiilan 20 marka waxa leenahay switchboard taraanki allow waxa uu ogolaatay inay maraan frameska ka imanaya fiilantan iyo ayaa ku soo darkiyo waayo insha Allah inkastoo laba barat video soo socda markii aan ku celin doono oo aan practical kala ku bixin doono ama example kale waxaan dhahnay markoodkii godkan iman interface fast ethernet 0/10 xaaladiisa waxaan ka dhignaa taraan sidoo kale awood waxaan ugu yeelanay godkan inay maraan frameska ka imanaya fiilantan hakad iyo fiilan 20 imka dib fiilaana kale loo abuuri milaayeen sida fiilan soo waan ku sii daba dari lahayn intaasan godkii kaga soo baxayna waxaan qabanan laba shaqo kaliya maan qaban inaan godkii mana fast ethernet 0/10 xaaladiisa ka dhignay taraan awoodna ugu yeelanay godkaasi maraan frameska ka imanaya fiilantan iyo fiilan 20 oo fiilantan iyo fiilan 20 waa kuwii godka waxa marayaan dhayn allow waxa loo ogolaaday frameska ka imanaya fiilantan oo halkana iyo fiilan 20 switchka ay waan ka iman router kan iman doona router kema kan imano ay waxaan qaban doonaa inaan godka loo yaqaan fast ethernet 0/0 horta markoodka aan shidno markaan shidnaan ayaan qaybin doona oo sub interface kan ku sameyn doona horta router keena nimano kuma leen interface keena nimano okay aan yar balaarsano router keena markood ka imanay soo garatay ma router keena nimanayna marka router keena aan joogno ayaan noo waleen halkan iska soo gud enable baan qornay okay configuration kan imanay waxa leenahay horta godka magaci godka router keena switch kala xina waxa loo yaqaan fast ethernet 0/0 fast ethernet 0/0 horta muddo godka aan shidno noo shadlown aan dhahan godka waan shidna ab noqday soo godka waan shidna muxuu noqday ab hadda iska soo baxalka imakan godka qaybinayna access ka soo godkii ma kan qaybinayna waxa leenahay godka magaciisa wuxuu ahaa interface fast ethernet 0/0 marka waxaanu kala jibinaa fast ethernet 0/0.1 iyo fast ethernet 0/0.2 fast ethernet 0/0.1 saad garatay ma haddaba halka marayna u baahnaana wixii loo yaqaanay su'aal baan ku weydiinayaa imika badhiyo kale ka taagnay ay waxaan u ogolaanay frameska ka imanaya fiilantan iyo fiilan 20 waxa su'aala waxa lagu kala soocaya fiilankan ka timi fiilantan iyo fiilan 20 framekan inuu ka yimaado fiilantan iyo fiilan 20 waxa lagu kala garanaya protocolkii inaga adeegsana protocolkii loo yaqaanay maxay ama ISL ka ama 802.1q marka waxa adeegsan protocolkii standardka oo 802.1q ayaan adeegsan doona marka halka marayno ayaa waxaan dhihi doonaa encapsulation protocolkan adeegsan oo fiirso waxa leenahay encapsulation xogteena halka maraysa godkii aan wili ku gudi jirnaa fast ethernet 0/1 fast ethernet 0/0 dad ma ku jaxleynay encapsulation xogta halka maraysa waxa baadi soociya oo garanaya ama lagu ogsoonaanaya framekan fiilanku ka yimaada anagu adeegsana protocolka oo yaqaan 802 ama .1q waxa loo soo gaabiyay waa protocolkii 802.1q ayaa .1q loo soo gaabiyay خلاص encapsulation dot 1q okay ha dot 1q ma qorna hadaba firiso dot 1q markaan qorno waxaan qornay markoodka godkii baan soo galnay fast ethernet 0/1 soma deetana waxaan dhahnay encapsulation waxaan adeegsanaa protocolka loo yaqaan 802.1q markaan halka marayna dhahaynaa yu baadi soocaya wuxuu baadi soocaya baan leenahay fiilankii loo yaqaanay fiilantank yu baadi soocaya ila socota IP address-ka uu yeelanayo ama default gateway-gaasi ama godkaasi IP address-ku yeelanayo waxa weeyaan IP address-kana ku sino aha IP address oo aha maxay 192.168.1.100 192.168.1.100 oo noqonayo 7.255 dot ambaladio
dot 0 inshallah waan ku celin doonaa exit ka soo bax imika godka waana ka dhamaan oo godka intaan imanay facet net 0/0.1 ayaan waxaan dhaanay waxaan adeegsanay encapsulation protocol loo yaqaan 802.1 isagoo baadisoo caya protocol loo isagoo baadisoo caya maxay fiilanki loo yaqaan fiilantanka IP address kinu say sida kala intaan godka imanno facet net 0/0.2 ayaan waxaan sameyn doonaa adeegsanay protocol loo yaqaan 802.1 isagoo baadisoo caya protocol fiilanka loo yaqaan fiilan 20 IP address kiisuna yahay 192.168.2.100 intaan qaban okay configuration kan joogto waxaan dhahaynaa interface ka loo yaqaano fast ethernet 0/2 okay godkeeni waa ka logical ka uu shidmay waxaan leenahay marka encapsulation protocol kan adeegsanno waa maxay waan labada protocol mid wada adeegsan kii hore maxaa la adeegsan 802.1q kan adeegsano .1q yu baad soocaya wax baad soocaya fiilanka loo yaqaan fiilan 20 yu baad soocaya IP address kan adeegsanna waa IP addresski oo default gateway noqon doona default gateway noqon doona fiilankaaga fiilan 20 waa IP address ka loo yaqaan 192.168.2.100 ayo default gateway noqon doona 192.168.2.100 oo ah 255.7/255.0 exit sagana iska soo sheekadii oranka waan dhameystirnay waliyo kaliya waxaan noo dhaman intaan computerada imanno default gateway-gooda aan siino mala socota bal computer game ka daan imanno oo aan imanno desktop-ka IP configuration ka imanno IP address-kiisu u haysta soma oo 7/6 laakiin default gateway-giisu ma haysta maadaama fiilantan ka tirsan yahay fiilantan default gateway-gooda waxa 192.168.100 buuha ayuha mala socota aan qorno 192.168.1.100 buuha mala socota balaanimana godka router switchka computerka labaadna isagana IP address-kiisu haystay maadaama fiilantan ka tirsan yahay default gateway-giisa oo ka saddexaad ah ay waxaan siin doonaa godka IP address-ki ama default gateway-ga ka yeelo 192.168.1.100 192.168.1.100 okay imika labadan computer IP address-koodi way haystaan default gateway-goodana way haystaan labadan computer default gateway-goodana siino oo ha maadaama fiilan 20 ka tirsan yihiin default gateway-gooda muxuu 192.168.2.100 buu 192.168.2.100 weeyaan okay iska soo bax computer kan kale asagana default gateway-gooda ay isagana siino maadaama fiilan 20 ka tirsan yihiin IP address-kiisa ay 7/6 default gateway-giisa tilmaamo oo ah la socda haddaba imaka sheekaduba way dhamaatay imika waxaan tijaabinaynaa inuu computer-kan la xiriiri karayo computer-ka kale maadaama imika default gateway uu jiro balaan eegno computer-ka indhaga joognaa bal computer-ka kale halka yaala ma la xiriiri karayo computer-kan tan imanno common prompt-ga kale markii hore way naga diiday soo lama arkayn bal imkaan eegno waxa leenahay adoo computer-ka ka jooga ka afra IP address-kiisa xasuusto wuxuu ahaa ping markaan qorno 192.168.2.2 buu balaan eegno inuu gaari karayo iyo in kale yar baan sugaynaa uu gaaray sana ma arko waa ka gaaray oo 3-4 message ba markaa imkan ku celino markaa hadaan imkan ku celino aan bingi dhahno laga yaabo midda koobaad waa intuu raadinayo ha aw baqi markaa hadaan ku celin 4 uu helaya balaan sharaxna dawa waxaan dhaanay computer one baa soo bigiray computer ka afraad oo markaa kala fiilaanayo 4 uu ka helay 4 baakad buu droppingi 4 baakad buu hadoo balaan sharaxno sheekadu dhac sheekadani soo dhacdan sharax markoobaadkeeni step 1 waxaan sameeynay step 1 ka wuxuu inoo ahaa saaxiibkayo inteena waxaaba dhisin inaan horta markaa intaan fiilaanada aan abuurnay step 1 intaas soo markaan fiilaanadii abuurnay ee biyo dirisidaan kala siinay intaas noo dhantay ay waxaan ogaanay computer walba inuu kii fiilaano kaliya la xiriiri karayo computer kana maadaama kala fiilaan la xiriir laakiin laba computer kala fiilaan wada xiriir sida dadka waxaan dhahan meesha waa in ugu horeyn la keenaa layer 3D face oo ah router-kii la keeno router-kii baan keenay marka router-kii aynu keenay ayaa dhowr erey bixin bay noo soo baxay erey bixintii koowaad waxay ahayd inaan godka switch-keena ka baxayo fast net 0/10ka aan xaaladiisa ka yeelno tarank inaan ka yeelno markaanu tarank ka yeelnay
ayaa waxaan dhahanay tan godkii markaan qornay switchboard marka godka waxaan galnay facility net 0 switchboard more tarank hoos baan soo daadegna waxaan qornay switchboard tarankii almacna waxaan sheegaynaa godka ayaa loo ogoliyay use fiilaan فريمة ده فيلانو كي من ين وين شجنا أنا دهنا switchboard ترانكي اللور واحد وقلاتا فيلان 10 أو 10 يفيلان 20 وقلاو مركا أنت أتكتكني أم جود كاس كصبحنا أي روتر كينا نمن وإحنا الروتر كينا ما دام وهالك وجود كاكل يولي فاسد نت 0/0 وماشينا يلان لب فيلان أي واحد دهنا جود كينا لب فيلان لبانو كرتشم هذا صدق فيلان لو يلان جود كينا صدق بانو كرتشم لان أصل الفيديو قصص أو كاركتر هذا شن فيلان يلان شن بانو كرتشم لان جود كينا فاسد نت 0/0 شن بانو كرتشم لان marka maadaama fiilano kali yeelan waxaanu kala jibnay facility net 0/00.1 facility net 0/0.2 facility net 0/0.1 wuxuu default gateway u noqonayaa fiilantan oo IP address kan siin doona 192.168.1 wuxuu default gateway waxaan ka wadnaa frame-ka madad waxaan arkayn in computer wani uu la xidhiidhayo computer-ka macnaheedu waxay tahay marka frame-ku kan ka yimaado switch-ka أمود الحوكتين هسام صار دارعيس ما صار دارعيسه وح سويتش كمان كمبيوتر كات ماذا روتر كالودي بيا قد كي كجلس أو قد كلا يقعنا فاسد إن 0/1 أو بهارين كمبيوتر كان هيسي أي بي أدرس 192.1.1 فريم كل حو دري أو بهارين default ticket ويجي سو دري ولا 192.1.1 هندرم بودري مكدانو خبينا أداني مكاير سي فريم كوس أنا يعني يجنو naga soo xirsid frame ku soconaya anaga simulation ka daanimano aan dhahno message baan dirayna aan dhahno computer kaasi frame kaana waa ku socdo balan eegno sida xogtu socdo markuwaadka computer kaagaas ka timi maxaa dhacay balan eegno haye router ka loo diraya maxaa dhacay adana router kee frame ka imanaya smarti adana ya loo diraya computer kaaga baa loogu diraya labaad sida say sheekadu socoto weel la fahmo way balimaka waa replay-giisa suugu soo celinaya haye router kaas imanaysa router kina maadaama replay-gi la celinayo router weyn baa computer weyn baa loo celinaya u fiirso markii hadalka router kaas aanu jirin laba filan ay kala duwan ma xiriiriyaan bal laakiin marka laba computer oo isku mid ah wada xiriirayaan بلين روتر كلها بحنادين كلان إيجنا بلان دهنا أوكي هذا فريم كان مسج كان سوق أنا عندنا كمبيوتر 1 هودر كمبيوتر 2 بلان إيجنا بلين في لانك الروتر كلها دري يسلم مركبين لوس عليه كمبيوتر كمان إيجدان روتر كنا واسي ديفولت كده هم بلغو دري مو يعني واسكسر كسرية أنا سأعطيه يمكن سيبرر كاسي هم بانو دري وأربعان لكن marka hadaan nimka dheegno marka dan message ka soo qaadano dhahno computer 1 how diro computer 2 balan eegno computer iyo lagu soo celinaya fariinti router ki waxa gaadhay router ka sababta markii dhow loogu diro waxa arab wixii loo yaqaan weeyaan oo computer kan ayaa waxaanu hayn maxay sheegay kale weeyaan arabi hore naga soo waranay marka la shalon ka waran laakiin ogsoono marka laba computer isku fiilaano kaliya wada xiriirayaan router-ki waxa loo ma baahna laakiin laba computer kaliya fiilanka xiriiraya ayaa loo baahnaa wixii loo yaqaan maxay haduu Allah idmo router-ki wax bal fiidiyowga soo socda insha Allah ayaa waxaan ku eegi doonaa bilintan fiilaanada inta ka badan 3 fiilaan ama 4 fiilaanta aan adeegsano balaan godkaana 4 mid aan u kala jibino inta ku kulmi doono waxaan ku kala tagno salaanta islaamka assalaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh